tiradii ugu sarreysay wax dhoofinta taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga markii ugu horreysay waxay gaartay 200 bilyan oo dollar. Wasiirka ganacsiga Turkiga Mehmet Mosh ayaa ku dhawaaqay in dhoofinta dalkiisa ay gaartay heerkii ugu sarreysay bishii Julaay ee la soo dhaafay, taasoo gaaraysa 16.4 bilyan oo dollar. Shir jaraa'id oo ku qabtay Ankara, Mosh waxa uu tilmaamay in dhoofinta ay korortay bishii Luulyo 10% marka loo eego isla bishii la soo dhaafay sanadkii hore. waxa uu carabka ku adkeeyay in dhoofinta bishii Luulyo ee la soo dhaafay ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliya bishaasi ilaa iyo maanta. dhinaca kale, Mosh waxa uu tilmaamay in dhoofinta 12 bilood oo la soo dhaafay ay gaartay 201.5 bilyan oo dollar, taasoo ka dhigan taariikh cusub oo ay gaartay Jamhuuriyadda Turkiga. goorsii horreysay madaxa golaha dhoofiyaasha Turkiga ayaa xaqiijiyay inay higsanayaan inay jebiyaan rikoor cusub, taasoo muujinaysa inay tani noqon doonto tiradii ugu badnayd oo taariikhda jamhuuriyadda, balse wali lama shaacinin. tani waxa ay ku timid kadib bandhigii caalamiga ah ee hargaha qaybtiisa 6aad oo lagu qabtay magaalada Antalya ee koonfurta Turkiga. waxa uu intaasi raaciyay inay fursad u ahayd bandhigga oo ay ka heleen shirkado caalami ah ee ka howlgala dhinaca hargaha iyo wax soo saarkiisa, isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay qaybta maqaarka iyo in kor loo qaado mugga dhoofinta ee Turkiga.